بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد maanta waxaanu sameynay wajigii koobaad banaynta wadada ka dhacaysay halka beerta xoriyada cawaala jiroon wadadaas oo fayska koobaad markay u kacayso u soconayso koonfur marka dambana bariga galbeed dhinaca galbeedka waxay kaga xidhmi doontaa halka wadada warshada leyrka halka ciidanka bileyska dhinaca kalena waxay kaga xidhmi doontaa ilaa maxamed mooge ka talaabi doontaa wadadaasi waxaan u mahadnaqayaa shaqaalaha dawladda hoose iyo ciidanka bileyska oo u dhabar adeegay iyo dadweynaha intooda badan oo si fiican u soo dhaweynayay waxaan ka xumahay si qof wada loo banaynaya qofka markuu wada dhisto haddana inuu cagafyadii dawladda iyo ciidanka dhagax kale u yimaado waxaan leenahay saaka dadkii halkaa ka galay falkaasi cagafta iyo gawaadhidii mas'uuliyiinta qaar ka mid ah jajabiyay sharciyada marnaba kaga hadhimayno waxaan mahad u celinayaa shacbiga kale badan ee xaafadda degan iyadoo way xanuun badan tahay marka hore khalad ku galo wadada ka dhiso laakiin marka dambe way xanuun badan tahay in qofka aqalkiisa la dumiya haddana u dhabar adeegay iyagoo la duminayo aqaladii ay hantidooda ku jirtay waxaan leeyahay waxa la sameeyaa waa hawl danguuda oo ah ummadoo dhan u adeegaysa maanta markay halkaas saxmadu ka taagan tahay qofka doonaya inuu tago ambassador doonaya qofka doonaya inuu tago half London halkan uu ka boodaya amba wada kale halkan martay noqonaysa isku xidhka magaalada fududeynaysa waxayna sameynaysaa qofka aqalkiisii qaybta laga dumiyay ma qaybta kale waxay u sameynaysaa inay u noqoto goob ganacsi oo ka faa'iido badan qiimihiina uu kor ugu kaco miidiyuhuna aad baa u mahadsantiin baahintiina iyo soo qayb qaadasay